kusoo dhawaada channelkeena Somali Technology Solution. Dad ku cusub tahay subscribe ka saar beelkana shido si aad u heshid casharadii ugu dambeeyay oo noqotid kuwa u hor daawada. Hala hilmaamin inaad like saartid barnaamijka lana wadaag walaalahaaga Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan. Waa mahadsantihiin. Si marka loo fududeeyo waxa la isticmaalo waxa la yiraahdo Internet bridge and switch. Okay, bridge ayaa ka horeeyay switchka labadiiba kala qaybinayaan. So halkan waa one collision domain, xaggan waa one collision domain. Marka information markay dirayaan, this guy will separate them. Wuu kala qaybiyay. So markuu diro oo dhameeyo ayuu kan soo jawaabaya. Halku hal mar uu diri lahaa labada complete. Okay? And computerka and switchku isagu each port is one collision domain. So how many collision domain we have halkan? Kow, laba, saddex, afar collision domain baan haysanaa. Xaggan bridge kuna laba kaliya buu samayn karaa. Haddaad halkan si fiican u fiirisiin one collision domain, how many collision domain we have here? Waa four interfaces by switchka ku xiran. Kan switch maaha waa hub. All the ports for the hub is a one collision domain. Waxa jirta wax kale la yiraahdo broadcast domain. Broadcast domain waxa isticmaala routerka. Broadcast taqaaniin ba waxa weeyaan waa information la dirayo oo one side ka socda. Sida TV oo kale waa broadcast domain. Macalinku markuu ardayda la hadlayo waa broadcast domain. Waxa baradonti wax la yiraahdo broadcast, unicast, anycast, multicast oo network isticmaasho. Marka mid baan u baran doonaa. Broadcast domain marka waxa weeye send to everyone. Meel kasta loo diray. Imika TV-ga marka daawanaysid adigu ma daawanaya laakiin qolada TV-ga lahayd ama TV-gi live-ka daawanaysid jawaabka ma celin kartid. Okay? So broadcast domain routerka u shaqeeyo. Marka routerku waa kan dhaxda ku jira waxa ku xiran 1 iyo 2 iyo 3 network waa ku xiran. So how many broadcast domain? 1, 2, 3. Ayuu leeyahay. Okay. These broadcast domains marka waa separate itself mid kasta goonideeda u socon tahay. How does a switch LAN MAC address? Waxaan u imanaa iyago practical ah. Switchku siduu u ogaadaa MAC address siduu u bartaa. Marka ugu horeysa switchku waa faaruq. Laakiin wuxuu ku bartaa MAC address-ka after configuration ayuu bartaa. Okay. Saad halkan u jeedid markaa halkan waxaad uga jeedaa PC1, PCA ama PC1 amba H1 ayaa doonaysa HP amba computer H2 ayuu doonaya in la hadlo. So waxaan odhanaya hey, this is my MAC address. Source MAC address ka waa kan. Destination kan doonaya inaan tagana waxa weeye waa PP maha CC. Switch doesn't know first time. Internet frame ka 3 bar waa u diraya. 3 bar markuu u diro waxa jira wax la yiraahdo address resolution protocol. oo shalay casharkii ka horeeyay ku soo baranay. Kaasa markaa uu turjumaya IP address-ka to MAC address. This guy baa soo jawaabaya switch markaa wuxuu baranayaa MAC address-ka xaggan ku jira. Okay, markuu kana soo jawaabo MAC address-kana uu baranaya. Marka next time markuu diro switch wuxuu leeyahay wax la yiraahdo MAC address table. oo kaydinaya. Okay, waxa kale oo important ah inaad ogaatid sida Cisco Campus Network Design Basic sida loo sameeyo network loo design gareeyo waa one of the important as well. Laba siyood baa loo design gareeyaa in la isticmaalo waxa la yiraahdo hierarchical network design oo distribution layer la isticmaalo iyo access. Marka kan ba waxa la yiraahdaa kan waxa la yiraahdaa
collapse ayaa la idhaahdo. So core-kii ma arkano access layer oo kuwana iyo computerada ku xidhnaayeen iyo distribution layer switch ayaa la sameeyay. haddaan kana kala barbar dhigno halkan waxaad arkaysaa saddex layers oo switch core switches, distribution switches oo labadana iyo access switches oo bottomka ah. Okay, marka for saving lacagta kan ay inta badan la isticmaalaa, shirkadaha lacagta badan haystaan kan ay isticmaalaan. So distribution oo baranto CCNA da ayaad ku baran doontiin haddii la raacdo kasi socono. Hierarchical network design wireless ka sida loo sameeyo. Core layer, distribution layer, access layer. halkan saad ujeedin waxaa la sameeyay mesh. So waxaa la sameeyay haddii switch kan xarigan xumaado dhinacan information ku diraya, hadduu kan xumaado kan uu diraya, hadday labada xumaadaan waa free rar, kana waa sidoo kale redundancy baa la yidhaha kana. Okay, marka layer 3 iyo layer 2 hadhow network amba waxaad ka shaqeyn doontaa layer 1 amba layer 2. Layer 3 waa xagga ugu sareysa, layer 2 na waa bartanka, layer 1 na waa userskii waxa ay computerada iyo qofka ka shaqeeya. Okay, network topology, star topology ayaa ugu horeysa. Star topology switch baa dhexda yaala LAN loo kala yareeyaa network computerada ku xidhan. faa'iidada uu leeyahay star switch waa easy to configure, easy to troubleshooting. So haddii computerka xumaado keligii baa laga saaraya, hadduu kan xumaado keligii baa laga saaraya, waa la garanaya ka cilada leh. dhibaatada uu leeyahay markaasi haddii switchka dhexda xumaado dee switch kalaad ku bedelaysa. mesh baa jira, mesh topology ama partition mesh topology iyadoo haafa watan San Francisco, Los Angeles iyo waxaa la isku xidhay Detroit, New York, Miami, kuwaas la isku xidhay. So computerkan amba networka xaggan yaalan New York hadduu xarigani go-o San Francisco tegaya, haddii San Francisco ka go-o Los Angeles buu tegaya, hadduu saddexdaba labadana go-aan buu tegaya Miami. saasuu soconaya. mesh topology-na halfkii halkan ka dhanaa ayaa lagu daray isagana inta. Okay, waxaa jirta waxa la yidhaha hub and spoke, iyadana waad baran doontiin. hub and spoke waxa weeye frame lay baa dhexda taala. Miami iyo Los Angeles marka xiriir toosa male iyagu, so waa brancheskii xaggana waa headquarterkii. So labadani hadday rabaan inay wada xiriiraan information waxa u dirayaan headquarterka soo celinsa markaa u diraysa xaggan. So information iyo xaggan u dirmaya kadibna uu soo noqonaya xaggan soo maraya. marka waxa weeye waa brancheskii iyo network iyo headquarterka. design kale waxa jira la yidhaha hybrid topology. hybridka waxaa la isku darayaa star iyo waxaa la isku darayaa mesh ayaa la isku daray. computerkan dhexda yaala star buu egyahay because kuwana ku xidhan. tani waa hub and spoke baa kusii xidhan labada dhanba. kani wuxuu egyahay full mesh, kadibna kanay kusii xidhan yihiin. hybrid baa la designka caynkaana. Introduction to the wireless LAN. Small office, home office wireless LAN sidaa inta badan u samaysan yahay. Cable DSL ayaad ku xidhan tahay, routerkaagu ISP internet service provider ayaad ku xidhan tahay, computer caadi ayaad ku xidhan tahay iyo laptop oo wireless. Okay, design kale caynkan jira isagoo hub ku sii xidhan iyo computerka labo intaas way jirtaa. Enterprise wireless LAN isaga saa loo wuxuu isticmaalo waxa control provision of wireless access point oo loo soo gaabiyo CAP1. Okay, so kuwani waa controlihii WLC weeyaan kii laga maamulayay, kadibna kuwana waa kuwii ay kusii xidhnaayeen ayuu noqonayaa
to the middle one. So kuwan hoosta waxa la yidhaahdaa lightweight access point ayaa la yidhaahdaa iyagana.